kulanti wacan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho iyo xogaha xasaasiya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo oo war cusub soo saaray madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo safarkiisii ugu horeeyay ugu ambabaxay isutaga Imaaraadka Carabta xildhibaan Cabdullaahi Aadan Kulane oo laamray in ilaalada laga qaado xabsi gurina laga dhigo warbixintaas oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan muuqaalkan fadlan muuqaalkan daawada sheer garee oo gaarsiiya asxaabtaada leegna saar si uu u gaaro bulshooyinka Soomaaliyeed madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tan iyo markii la doortay safarkiisii ugu horeeyay ugu ambabaxay isutaga Imaaraadka Carabta waxaana ila xogogaal ah noo sheegeen in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu soo qaadan doono dhaqaale dawladda Imaaraadku ugu talagashay dawladda cusub ee uu madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud taasi oo lagu qaban doono qorshooyinka fila Soomaaliya ay rabto waana lacag loo adeegsan doono arrimo siyaasadeed dhinaca kalena afayeenka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay guri loo dhisayo madaxweyne Farmaajo isagoo u mahad celiyay dhammaan dadka ka soo qayb qaatay waxaana muddooyinkan kooxda Farmaajo lagu eedeynayay in ay dhinaca warbaahinta ka qabsadeen dawladda cusub ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana la sheegay in safarkii dhawaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay Baydhabo iyo Dhuusamareeb inuu wiiqay guriga loo dhisayo Farmaajo oo xilligaas loogu soo aadiyay sidoo kale caleemasaarkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa lagu soo aadiyay waraysigii uu bixiyay taliyii hore ee hay'adda NISA Fahad Yaasiin waxaana loo fahmay bilowga dagaalka kooxda Farmaajo ay la gali doonto dawladda cusub ee dhawaan loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud waxayna dhammaan dhacdooyinkan xadaaradii ka qaadeen dawladda cusub ee hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kalena waxaa la soo warinayaa in taliyaha NISA Mahad Maxamed Salaad uu amray in dhammaan ilaalada laga qaado xildhibaan Cabdullaahi Aadan Kulane oo horay u ahaa taliye ku-xigeenka NISA ee Fahad Yaasiin waana dhacdo naadir ah oo u muuqata in xildhibaan Cabdullaahi Aadan Kulane la rabo in laga aarsado iyadoo xabsi guri laga dhigayo waana markii ugu horeysay oo xildhibaan heer federaal ah laga qaado ilaaladiisa lama oga waxa arrintan ka dhalan doona iyo qaabka ay uga falcelin doonaan kooxda Farmaajo oo ay ku xoogan magaalada Muqdisho gaar ahaan xildhibaanada iyo golaha shacabka waxaana jira saraakiil badan oo la soo shaqeysay nidaamkii madaxweyne Farmaajo oo xilligan la beegsan rabo waana macquul ayaa la leeyahay inay saraakiishaas isku biiraan ayna abuuraan xasarado waaweyn maadaama la beegsanayo intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho.